ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii qubanaha qodobada caawa barnaamijka aan idinkugu haynana waxaa ka mid ah mid ka mid ah madaxweynayaashii hore ee Iiraan oo lagu eedeeyay inuu u adeegayo Israa'iil eedayntan culus ayaa dood iyo hadal lahayn ka dhalisay gudaha Iiraan wararkii ugu dambeeyay amuurahan ayaan idin soo gudbinaynaa militariga Suudaan oo ku dhawaaqay in ciidankooda ay kala baxeen xaruntii ugu weyneed ee shidaalka lagu qodi jiray ee dalkaasi kadib markii dagaaladu ay ku soo dhawaadeen goobtaasi Mareykanka iyo Israa'iil oo si weyn isugu khilaafsan qorshaha lagu doonayo in ciidamo caalami ah lagu geeyo Suuriyada Gaza ra'iisul wasaarihii hore ee Britain Tony Blair oo laga saaray liiska golaha nabadda ee lagu wado in uu maamulo Mareyka Gaza miyaha guud ee qaramada midoobay oo si adag uga hadlay weerar ciidanka Israa'iil galabta ay ku qaadeen xarunta hay'adda UNRWA ee magaalada Qudus ee la haysto sheekada ugu dambeysay barnaamijka aridii kugu hayaana waxay ku aadan tahay shirkadda Samsung oo soo bandhigtay telefoonkii la wada sugayay ee saddexda mar laba laamaya qodobadan iyo weliba sheeko kale iyo sheekooyin kale oo faahfaahsan ayaan idinkugu soo gudbinaynaa barnaamijka qubanaha Imara Luxury Homes dhismayaasha cusub ee Imara Luxury Homes waxay ka kooban yihiin 2 qol iyo fadhi 3 qol iyo fadhi 4 qol iyo fadhi iyo guryo duplex ah iyo kuwo penthouse ah guri kasta waxa uu leeyahay qolkii shaqaalaha waxaana loo dhammaystiray wax kasta oo xaafad gaar ah ay u baahan tahay waa laba dhismo cusub oo labadaba gacanta lagu hayo dhawaana soo idlaan doona dhismaha koowaad shirkadu waxay ka dhisaysaa xaafadda Parkland City Park Drive 6th Avenue waxaana ku dhow yahay isbitaalka Aga Khan dhismaha labaadna waxa uu marayaa dabaqa koowaad waxaana ku yaala Kilimani wadada madaxtooyada ama State House-ka ee Deansbury Road faahfaahin dheeriya la xiriir ciwaanada iyo telefoonada shaashada kaaga muuqda ku soo dhawow xarunta caafimaadka ee Private Walk in Clinic Private Walk in Clinic waa xarun caafimaad oo ay ka howlgalaan dhakhaatiir khubaro ah oo isugu jira Soomaali iyo ajnabi oo rag iyo dumar bale xaruntu waxay dib u habayn iyo casriyeyn ku samaysay dhammaan adeegyada caafimaad ee ay bixiso xaruntu waxay furan tahay 7 maalmood ee isbuuca ballantana si fudud ayaad u qabsan kartaa adigoo isticmaalaya telefoon fariin qoraal ah ama online waana heli kartaa ballan dhakhtar isla maalintaas xarunta Private Walk in Clinic waxa ay ku taallaa galbeedka magaalada London xaafadda caanka ee Shafar Bush wixii faahfaahina kala xiriir lambarada emailka iyo baraha bulshada shaashada kaaga muuqda xarunta barashada diinta islaamka ee casriga ah ee habka online-ka wax lagaga barto ee Tawfiiq Islamic Online waxa ay leedahay 3 qaybood oo kala ah qaybta higaada oo loo diyaariyay muddo cayiman qaybta xifdinta quraanka kariimka qaybta barashada shareecada sida xadiiska fiqiga siirada naxwaha tafsiirka quraanka iyo aqeedada iyo wixii la mid ah waxaana dugsiga kugu diyaara macallimiin rag iyo dumarba leh oo u tababaran maadooyinka ay dhigayaan faahfaahin dheeriya la xiriir telefoonka shaashada kaaga muuqda soo dhawaada mar kale daawadayaan si aad ula socoto oo hesho wararkan barnaamijyada iyo macluumaadka aynu halkan ka soo gudbino haddii aad ku cusub tahay baraheena bulshada amaba horay aadan ugu xirnayn hadda ku soo biir waad ku mahadsantihiin daawashada barnaamijka caawa waxaynu ku bilaabaynaa dalka Iiraan halkaasi oo war weyn uu ka soo yeerayo warbaahinta la safan ciidanka ilaalada kacaanka islaamiga ee Iiraan ee magacooda loo soo gaabiyo IRGC ayaa si xoojisay weeraradooda dhaleecaynta ee ka dhanka ah madaxweynihii hore ee Iiraan Xasan Rouhani isaga iyo dhowr ka mid ah gacanyaarayaashiisa ku eedeynaya in ay u adeegayaan Israa'iil hadalladan si kululaanaya ayaa waxaa ka dhalatay dood adag waxaana la sheegayaa inay yimaadeen kadib markii hadal dhawaan uu jeediyey Xasan Rouhani uu su'aal geliyay heerka diyaar garowga Iiraan ee difaaca hawada kadib dagaalkii 12 maalmood socday ee bishii June dhex maray Iiraan iyo Israa'iil isagoo ku tilmaamay in hanaanka difaaca Iiraan uu daciifay sida hadalka uu dhigay aragtidiisa ayaa dib u kicisay khilaaf dhanka siyaasadda oo horay u sii holcayay gudaha jamhuuriyadda wakaaladda wararka Tasniim oo loo arko afka ugu muhiimsan ee ciidamada IRGC ayaa soo saartay falcelintii ugu adkeyd iyadoo si ficil ah u diiday talooyinka Rouhani ee ku saabsanaa sida looga baaqsan karo dagaal kale dhaliishan ayaa ku soo aadaysa xilli dooda ku saabsan cidda bedeli karta hogaamiyaha sare Cali Khamenei
ay sii xoogaysanayso taasi oo xiisadda gudaha ka jirta sii kordhisay. tasniim waxay maqaalkeeda ku qortay ciwaanka ah wuxuu u shaqaynayaa Israa'iil iyadoo sawirka Rouhani soo dhigtay bogga hore. wakaaladdu waxay ku eedeysay Rouhani inuu sameeyey fasiraado kibir iyo ismaamuus ku dhisan oo ku saabsan kaalintiisa dhanka diblomaasiyadda, waxaana ay su'aashay haddii uu ka wado in habka ka hortagga Iiraan aysan jirin marka laga reebo wadahadaladii uu hogaaminayay. wakaaladda wararka tasniim waxay xustay in diblomaasiyaddii Rouhani aysan ka hortegin ka bixitaankii Maraykanka ee heshiiskii nukleerka muddoxileedkii hore ee Trump ama dilkii Qasim Soleimani iyo Mohsen Fakhrizadeh oo labaduba loo aanaynayo Israa'iil sida warbaahinta Iiraan ay sheegayso. xasan Rouhani dhankiisa wuxuu sheegay in Iiraan ay u baahan tahay jawi ammaan ah, isagoo ka digay in dalka uusan ku sii jiri karin xaalad dagaal iyo nabad midna aan ahayn. wuxuu sheegay in awooddii ka hortagga goboleed ee Iiraan ay hoos u dhacday maadaama hawada dalalka dariska ah ay hoos tageen Maraykanka iyo Israa'iil. tasniim waxay ku eedeysay in hadalladiisu ay u adeegayaan Israa'iil, iyadoo dib u soo xususay eedeymo hore oo ku saabsan inuu ka gaabiyey taageerada faragelintii Iiraan ee Syria 2013 ilaa 2014. khilaafkan ayaa sidoo kale wuxuu ku soo aadayaa hadal hogaamiyaha sare ee Iiraan uu jeediyey 27kii bishii ay niweedaaratay ee November oo kaga digay kala qaybsanaan gudaha ah. muddo bilaah Rouhani wuxuu wajahayay weerar dhanka siyaasadda oo si joogta ah uga imaanaya xubnaha ay ka mid yihiin xubnaha baarlamaanka oo ku eedeynaya in uu isku diyaarinayo inuu noqdo beddelka Khomeini haddii uu dhinto ama uu noqdo mid aan shaqayn karin ama howlgab ah, iyo xitaa haddii Israa'iil isku daydo isku daydil. gudoomiyaha baarlamaanka Iiraan Maxamed Bakhir Qalibaf ayaa Rouhani iyo wasiirkii hore ee arrimaha dibadda Javad Zarif wuxuu ku eedeeyey inay dhaawaceen xiriirka Iiraan iyo Ruushka. marka laga tago warbaahinta iyo dhalisha ay jeedinayso, ma jiro war rasmi ah oo ka soo baxay dhanka xukuumadda madaxweyne Mas'uud Pezeshkian oo ku aadan hadalladan ka soo yeeraya warbaahinta Iiraan oo sida adag loogu dhaliilayo madaxweynihii hore xasan Rouhani. hagaag wararkaasi waxay ku soo kordha barnaamijyadeena dambe ayaan idinkugu soo gudbinaynaa. imikana Suudaan, wararka ka imaanaya dalkaasi ayaa ku waramaya in ciidanka militariga ee dowladdu ay ka baxeen xaruntii ugu weyneed ee shidaalka lagu qodi jiray kadib markii ciidamada RSF ay kaabiga u soo saareen ciidamadooda magaaladaasi. warbixin amuurahani ku aadan waxaa halkan ka soo jeedinaysa wariyahayaga Nimco Cabdikariin Timacadde. ila ka tirsan ciidamada Suudaan ayaa warbaahinta u sheegay in ciidanka Suudaan uu ka baxay goobta laga qodo saliidda ee Haglig ee ku taala Kordofaanta galbeed si loo badbaadiyo dalalka shidaalka loogana fogaado burbur iyo waxyeelo. kadib markii ila ka tirsan militariga ay sheegeen in ciidanka gurmadka degdega ah ee RSF ay weerar ku qaadeen gootada 9aad ee ciidamada Suudaan ee ku sugan magaalada Haglig ee galbeedka Kordofaan. sida ay sheegeen ila waradku, shaqaalaha rayidka ah ayaa laga daadguriyay goobta Haglig iyadoo oo la howlgeliyay habraacyada badbaadada ee goobaha shidaalka. wakaaladda wararka AFP ayaa xaqiijisay in goobtan ay tahay tii ugu weyneed ee shidaalka laga soo saaro ee gudaha Suudaan ku taala. ila military ayaa u sheegay warbaahinta in RSF ay weerar ku qaadeen gootada 9aad ee Haglig iyagoo doonaya inay la wareegaan magaalada oo ay ku yaalaan dhowr goobood oo saliidda laga qodo, isla markaana ay deganayeen shirkadaha ajnabi ah oo hayaamay koonfurta Suudaan kadib weeraro hore oo RSF ay fulisay. war kale oo dagaalka la xiriira, ciidamada Suudaan waxay ku dhawaaqeen inay horumar ka sameeyeen koonfurta ayna la wareegeen goobo ay horey u haysteen ciidamada RSF oo 3 gobol ee Kordofaan ka tirsan. dhanka kalena hay'adaha amniga ayaa sheegay in 4 qof ay ku dhinteen duqeyn RSF ay ka geystay magaalada Al Raxaad ee gobolka waqooyiga Kordofaan koonfurta dalka. ciidamada Suudaan waxay sheegeen inay ka hortageen weerar diyaaradaha droniska oo RSF ay ka fulisay magaalada Damazin ee caasimadda gobolka Niilka Buluuga. dhanka kalena RSF ayaa ku eedeysay isla ciidamada Suudaan inay duqeeyeen isgoyska xadka Andre ee dalka Chad.
dhanka bini'aadantinimada ururka caalamiga ah ee socdaalka IOM ayaa tilmaamay in ku dhawaad 450 qof ay ka barakaceen magaalada Kodigle ee gobolka Kordofanta Koonfureed jimcihii la soo dhaafay sabab la xiriira xaaladda amni oo sii xumaanaysa iyo xadgudubyada sii kordhaya ee RSF ay geysanayso. Kodigle waxay ku jirtay godoomin ay ku rogeen RSF iyo jabhadda SPLMN ee uu hogaamiyo Cabdilcasiis Alhilo tan iyo bilihii hore ee dagaalka waxaana marar badan ka dhacay duqeymo madaafiic iyo weerar drones ah. Lama hayo tiro rasmi ah oo ku saabsan dadka ku sugan Kodigle balse waxaa jiray mowjado waaweyn oo barakac ah oo goob u dhacay. Qaramada Midoobay waxay ku qiyaasteen in ka badan 41,000 oo qof ay ka qaxeen gobolada Kordofanta waqooyi iyo kan Koonfureed bilihii la soo dhaafay sabab la xiriira rabshadaha sii kordhaya. Nimcati Macade, HBN Online TV. waatahay nimca aad bay u mahadsan tahay daawadayaal waxaan u gudbaynaa warar la xiriira arrimaha Gaza gaar ahaan Mareykanka iyo Israa'iil oo isku maandhaafsan qorshaha ciidamo caalami lagu geenayo Mareykanka Gaza. waxaan kaloo idiin soo gudbinaynaa warbixin la xiriirta qaramada midoobay xogayaheeda guud oo si adag uga hadlay weerar ciidanka Israa'iil maanta ay ku qaadeen xarunta hay'adda UNRWA iyo weliba warar kale laakiin aynu ku hakanno qadar xayeysiina. hoyga barashada diinta ee xifdul qur'aan online maadooyinka lagu barto waxaa ka mid ah quraanka kariimka higaada axaadiista ducooyinka tarbiyadda asaasiga ah ee ilmaha tafsiirka quraanka iyo qaybaha kale ee culumta shareecada waxaadna helaysaa 24 saacba 5 maalmood oo ka mid ah isbuuca dugsigu waxa uu bixinayaa caddayn waxbarasho oo aqoonsi leh ama shahaado faahfaahin dheeriya la xiriir whatsappka +252 633 145 153 wargelin muhiim ah ma doonaysaa in laga cimriyo waalidiintaada oo dhintay ama sariiryaal ah wax ka yar $300 ayaa lagaga cumraynayaa waalidkaaga shirkadda Altaqwa ayaa kuu samaysay qiimo dhimis waxaa lagu soo duubayaa muuqaalo ku saabsan qaabka cumrada ay u dhacday haddaba wixii faahfaahin kala xiriir shirkadda Altaqwa Hajj and Umrah nambarka shaashada kaaga muuqda. internet plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan rasiifar ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah. soo dhawaada marka la daawadayaan wari waxaad la socotaan barnaamijkii qubanaha oo toos idin kaga imaanaya istuudiyaha iyaga koowaad. barnaamijyadeena waxaad ka heli kartaan bogagga bulshada ee internetka sida YouTube-ka, Facebook-ka, Twitter-ka iyo Telegram-ka. warbixino qoraal ah, warar, faallooyin iyo macluumaadyo kale waxaad ka heli kartaan bogga internetka aynu ku leenahay ee www.hbnonlinetv.com. ku xirnaa HBN oo ka dhigo wehelkaaga wararka. waa hagaag wararka la xiriira arrimaha Gaza aynu eegno. tani markii madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu ku dhawaaqay hindisaha Mareykanka Gaza la xiriira waxa ay soo tiriyay warka la xiriira in la dhisi doono waxa loogu yeeray guddiga nabadda una hogaamin doono ra'iisul wasaarihii hore Britain Tony Blair laakiin caawa war arrimahaasi ka duwan ayaa soo baxay. wargeyska Financial Times ee ka soo baxa magaalada London ayaa wuxuu ka soo xigtay ilawarad sheegaya in Tony Blair laga saaray liiska musharaxiinta golaha nabadda ee madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu soo jeediyay in uu maamulo Mareykanka Gaza sida ilawaradku ay sheegeen ka saarista Blair ee liiska xubnaha golaha nabadda ee Gaza waxay timid kadib markii dalal Carabi iyo Muslimiin ay si cad uga soo horjeesteen magacaabistiisa. wargeysku waxa taasi ku daray in Blair uu noqon karo xubin ka tirsan golaha nabadda ee Gaza haddii la dhiso laakiin uuna soo noqon doonin ninka hogaaminaya. waa hagaag maanta militariga Israa'iil waxay weerar ku qaadeen xarunta UNRWA ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha qaxootiga Falastiiniyiinta ee ku taal magaalada Qudus ee la haysto. arrintaasi xogayaha guud ee qaramada midoobay ayaa aad uga hadlay. afyeenkiisa ninka lagu magacaabo Stephen Dujarric ayaa waxa uu sheegay in Guterres uu si xad dhaaf u cambaareeyay gelitaanka aan fasaxa lahayn ee mas'uuliyiinta Israa'iil ku sameeyeen xarunta UNRWA ee ku taal magaalada Qudus ee la haysto. Dujarric wuxuu sheegay in talaabadan ay tahay mid ka hor imaanaysa xeerarka qaramada midoobay ayna qatar gelinayso shaqaalaha hay'adda gargaarka ee loo xilsaaray taageerida qaxootiga Falastiiniyiinta. isla arrimaha Israa'iil inteena ka bixin ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa caawa la kulmay safiirka Mareykanka u fadhiya qaramada midoobay Mark Walters waxaana lagu soo waramayaa
in ay uu jiro farqi weyn oo u dhexeeya Tel Aviv iyo Washington gaar ahaan wejiga labaad ee qorshaha xabajoojinta ee Mareykanka Gaza. Wargeyska Maarif ayaa sheegay in kulanku uu ka dhacay xafiiska Netanyahu waxaana ka soo qayb galay danjiraha Israa'iil u fadhiya qaramada midoobay Danny Danon, safiirka Mareykanka ee Israa'iil Mark Huckabee iyo mas'uuliyiin kale oo amni. Kulankan ayaa waxaa la qabtay si degdeg ah iyadoo dib loo dhigay maanta dacwad maxkamadeed oo Netanyahu 76 sano jir ah uu wajahayo eedeymo musuqmaasuq ah. Labada dhinac waxay ka wada hadleen xaaladaha siyaasadeed ee caalamka iyo isku duwidda dhanka siyaasadda ee Israa'iil iyo Mareykanka. Wargeysku waxa uu sheegay in kulankani uu dhacay xilli ay jiraan kala duwanaansho xagga aragtida oo ku saabsan u gudbidda wejiga labaad ee qorshaha nabadda loogu yeero ee madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ee Gaza ku wajahan. Mareykanku wuxuu doonayaa in la dhiso si degdeg ah ciidamo caalami ah oo Mareykanka Gaza la geeyo loona gudbo wejiga labaad halka Israa'iil ku adkaysanayso in la sugo ilaa iyo inta laga helayo meydka maxbuuska ugu dambeeya Israa'iil Ran Gueli oo hadda kamid ah meydadka maxaabiista ee ugu dambeeyay. Netanyahu ayaa haddii sheegay in wejiga labaad uu dhawaan bilaaban doono iyadoo wejiga koowaadna dhammaad uu ku dhow yahay. Washington sidoo kale waxay riixaysaa qorshaha ciidamada caalamiga ah ee loogu yeero ISAF inkastoo dalal kooban oo ay ka mid yihiin Indonesia iyo Azerbaijan ay muujiyeen inay diyaar u yihiin ciidamadaasi inay diraan. Haddana waxaa la sheegayaa wadamadii horey ciidamadan looga filayay inay soo diraan ayaa waxaa la leeyahay way ka gaabinayaan arrintan. Sababtuna waxay tahay baa la leeyahay iyadoo uusan caddayn ahdaafta ciidankan iyo waxa ay noqonayso hawshooda. Israa'iil ay ku andacoonayso inay rajaynayso ciidankan inay hubka ka dhigaan iska caabinta Falastiiniyiinta. Marka dalal Masar ay ka mid tahay ayaa waxay leeyihiin Israa'iil waxa ay sameyn weyday 24 bilood oo dagaal ah oo ah inay hubka ka dhigta iska caabinta anagoo ka dhigamayna. Waayahay haatan waxaynu soo gaarnay sheekadii ugu dambeysay ee barnaamijka aynu ku soo gabagabayn jirnay. Alaab waxaynu ku soo qaadanaa sheeko ka duwan sheekooyinka barnaamijka aad ku soo daawateen. Caawa xagga tiknoolajiyadda ayaynu eegaynaaye shirkadda Samsung ee laga leeyahay Kuuriyada